kulanti wanaagsan saaxiibayaal halkani waa shabakada wararka ee Dugaal TV hadduu rabi qadarana qaybtan waxaynu idinku soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida ee xilligan taagan Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre oo xilka qaadis ku sameeyay maareeyihii garoonka diyaaradaha cadde ee magaalada Muqdisho isagoo xilkaasi u magacaabay mas'uul ka soo jeeda deegaanada maamulka Puntland xilli la rumaysan yahay in ninka la magacaabay uu aad u dhaliilsanaa madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland waxaan idin wadaagi doonaa magacyada mas'uulka xilka laga qaaday iyo midka xilka loo magacaabay qodobada kale ee barnaamijkeena aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqonaya al-shabaab waxa ay gubeen deegaano hoostaga degmada Maxaaseed ee gobolka Hiiraan iyadoo la soo tabinayo in xilligan dagaal uu ku dhaxmarayo ciidamada macawisleyda iyo kuwa dowladda Soomaaliya oo garaba iyo sidoo kale dagaalamayaasha al-shabaab xilli maalmihii la soo dhaafay baraha bulshada la isugu wadaarsanayay sawirro laga soo qaaday dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab oo meydadkooda lagu faafiyay baraha bulshada xoogihii ugu dambeeyay dagaalkaasi ayaan saaxiibayaal idin soo gudbin doonaa balse aan ku bilaabo Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa xilka qaadis ku sameeyay maareeyihii garoonka diyaaradaha cadde ee magaalada Muqdisho Cabdinaasir Maxamuud Gure iyadoo mas'uul kale uu xilkaani u magacaabay warbaahinta Dugaal xogo hoose ay helayso ayaa tibaaxaya in aysan faafin rasmi ah la gelin ayaa waxay wararkii oo xaqiijinayaan in la magacaabay Maxamed Signal oo shaqadani ka bedeli doona ninka lagu magacaabay Cabdinaasir Gure ayaa xilkan hayay muddo sanad iyo 2 bil ah isagoo xilkan kala wareegay bishii June ee sanadkii hore 2021 General Cabdi Ashkir Mareeha cusub ee Maxamed Signal iyo Cabdinaasir Gure labaduba sida la rumaysan yahay waxa ay ka soo jeedaan maamul goboleedka Puntland xilli ninka xilka loo magacaabay Signal la rumaysan yahay inuu aad u dhaliilsanaa maalmihii la soo dhaafay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo la sheegay in arrintaani aan wax tala gelina laga siinin sidoo kalena ila ku dhow madaxtooyada dowlad goboleedka Puntland ay noo xaqiijinayaan in arrintaani ay si weyn uga xumaadeen maamulka Puntland ee uu hogaamiyo madaxweynaha Saciid Cabdullaahi Dani xilli maalmihii la soo dhaafaba xiriirka dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Puntland uusan wanaagsaneyn oo la rumaysan yahay madaxweynaha Soomaaliya markii uu tagay magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland loogu soo dhaweeyay si xildhibaan deegaan doorashadiisa dib ugu laabanayo oo kale iyadoo la dareemi karaba qaab dhaweynta loo sameeyay in aysan ahayn qaabkii loo sameyn jiray madaxdii soo martay dowladda Soomaaliya xilligii ay tagayeen maamulada Puntland oo ugu dambeeyay madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo tagay maamulka Puntland xilli uu madaxweyne ka ahaa Cabdiweli Cali Gaas oo lagu soo dhaweeyay si weyn oo maqaamkeedu sareeyo dhanka kale al-shabaab ayaa la soo warinayaa in ay gubeen deegaano hoostaga degmada Maxaaseed ee gobolka Hiiraan wararka laga helayo gobolka Hiiraan ee maamulka Hirshabeelle ayaa sheegaya in al-shabaab ay mar kale gubtay guryo iyo ceelal ay leeyihiin dad shacab ah xilli ay al-shabaab sii wado dagaalka shacabka ay kula jiraan ee ka socda deegaanada maamulka Hirshabeelle guryaha iyo ceelasha la gubay ayaa waxa ku yaaleen deegaanka Ceel Jiqow oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan waxaana la xaqiijiyay inay kooxdan gubtay dhammaan guryihii tuuladan ku yiili iyadoo la soo warinayo ceelalkii halkaasi ku yiili oo ay biyaha ka cabi jireen dadka iyo sidoo kale xoolaha iyana la gubay sidoo kale dadka deegaanka ayaa xaqiijiyay in al-shabaab ay qaraxyo ku burburisay halkii ceel biyood ee ku yiili deegaanka Ceel Jiqow oo dadka iyo xoolaha ay biyaha ka cabi jireen dadka deegaanada ama deegaanada tuuladan ayaa la xaqiijiyay inay gabi ahaanba isaga guureen ee tuuladani xilli ay culeysyo badan kala kulmayaan oo ay soo wajahayso biyo la'aan iyo sidoo kale in amnigooduba uusan xaqiiqsaneyn ama markaa la rumaysan yahay in ay kala kulmi karaan waxyaabo aan wanaagsaneyn odayaal ka tirsan dadka deegaanka ama odayaal ka mid ah dadka deegaanka ayaa xogo hoose inala wadaagay oo sheegayaba in al-shabaab ceelalka iyo sidoo kaleba meelaha ugu muhiimsan ee tuuladani ay ku xireen bambooyin ama qaraxyo ay ugu talagaleen in markii ciidamada dowladda ay yimaadaan ay ku qarxaan waa markii labaad oo al-shabaab ay gubaan guryo ku yaala gobolka Hiiraan tan iyo markii uu bilowday abaabul ama kacdoon ka dhana al-shabaab oo ay bilaabeen dadka deegaanka oo u abaabulan qaab qabiila inta badan deegaanada gobolka Hiiraan ayaa waxa ka socda kacdoon ka dhana al-shabaab
waxaana kooxdan laga saaray deegaano badan oo ay ka mid yihiin gobolka hiiraan xilli al-shabaab ay dagaalo kala kulmayaan dadka deegaanka ama dadka dega deegaanada maamulada hirshabeelle iyo galmudug iyadoo la rumaysan yahay in guluf looga soo horjeedo al-shabaab uu ka soconayo maamulka galmudug oo la rumaysan yahay in shalay magaalada muqdisho laga qaaday ciidamo aada u tiro badan oo ka kala tirsan danab haramcad ciidanka xoogga dalka iyo sidoo kale qeybaha kala duwan ee ciidanka dowladda soomaaliya oo shalay laga dejiyey magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug iyadoo la sheegay in ciidamadaasi ay usii gudbi doonaan deegaano hoostaga degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud oo al-shabaab sanadihii u dambeeyey ay gacanta ku hayeen wararka qaarna waxa ay tibaaxayaan in siyaasiyiin kale oo kasoo kala jeeda deegaanada xarardheere iyo ceeldheere ay abaabulayaan ciidamo u dhashay beelaha dega deegaanadaasi iyadoo ay markaa qorsheynayaan in ciidamadaasi la geyn doono magaalada dhuusareeb kadibna loo sii kaxayn doono deegaanada al-shabaab ay gacanta ku hayaan al-shabaab ayaa maalmihii lasoo dhaafaba dagaalo kula jiray dadka deegaanada ama dega maamulada hirshabeelle iyo galmudug oo ay ka gubeen ceelal iyo sidoo kaleba guryo oo ay ka deganaayeen tuulooyinkaasi wararkii ugu dambeeyey ee warbaahinta dugaal TV na saaxiibayaal u wanaagsan